khushuucu waa in qalbigaaga aad ilaahay ku xirto inaad ilaahay hor taagan tahay markaasay xibnahaagu xasilayaane qalbigaagu hadduu baqan yahay xibnahaaguna ma joogaan way xarakaadayaan laakiin qalbigaagu markuu xaadir yahay xibnahaagu way xasili waxaa laga doonayaa oo kale qofku tadabbur inuu la yimaado waxa uu aqrinayo macnahooda uu ku tadabburo masalan salaada markuu yani suuratu lfaatixa yaa salaad yuu ku magacaabaya xadiidka xadiis qudsiga ilaahay muxuu leeyahay qasamtu salaada baynii wa bayna cabdii walicabdii ma sa'al qasamtu salaada baynii wa bayna cabdii faida qaala alxamdu lilah yaquulu rabbi wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygii waa imahadiyey waida qaala alraxmaan الraxiim ilaahay muxuu leeyahay ahnaa calaya cabdii addoonkayga waa i ammaanay maaliki ywm اddiin markuu yidhaahdo majadanii cabdii wa fii riwaayatin fawada ilaya cabdii addoonkaygii waa i sharifay addoonkaygu taladiisi buu ii dhiibtay ilaahayow maaliki ywm اddiin maalinka is abaalmarinta adaa meligi adiga ayaa xukuma cid kaloo maamulaysaa ma jiro waida qaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hada baynii wa bayna cabdii walicabdii ma sa'al hada baynii wa bayna cabdii oo waa maxay iyaaka ilaahow adigaa nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga umbaan nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa adduun iyo aakhira de qofku wuxuu doonaya isticaano ilaahay buu ka rabaa addoonka haddaan loo kaalmaynin ma wuxuu la imaan kara ma jira soo ma hada baynii wa bayna cabdii oo waa maxay inaad i caabudo anigana aan kuu kaalmeeya ilahay leey marka qofku dee asagoo ilaahay sidaa oola munaajoonayo le iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin qalbigiisu hadduu meel kale jira ka hor hadduu dukaanka xisaabinayo ama meel kale uu ka fikirayo ama hawlo uu isku xirxirayo waa sida aan nahayba hadda mar alla markii salaada la galo unbuu wixii maqnaayo oo dhan buu shaydaanku nagu soo xaadirinaya iyo xadiidka nabigu u lehy sala allahu alayhi wasalam shaydaanku yajri ibna aadam majra dam dhiigga meeshuu marayo ayuu u marayaa salaadda markii loo aadaamo wuu cararayaa shaydaanku walahu duraad asagoo weliba dhuuso isku dhagatiraya duraad waxaa le riixda weliba midda sawd kale la maqlayo buu isku dhagatirayaa muxuu isugu dhagatirayaa wuu cararayaa meel foog intaasoo mayl buu tegayaa markuu sii ordayana dhuusahaasu isku dhagatiraya muxuu yeelayaa qof kastoo mu'adinka aadaankiisa mool qiyaamaha wuu markhaati kacaya markhaatigaas inuu galo diidaya khayrka inuu ka markhaati kaco marka wuu cararaya markii aadaanka la dhameeyuu wuu imaanaya fa idaa sawiba lisalaat haddana markii aqimkii la gaaro wuu cararaya shaydaankii markii aqimka la dhameeyo haddana soo laabanaya ilaa uu qofka iyo qalbigiisa kala dhex galo nabigu ley alayhi salaatu wasalaam intaasoo mayl intuu tegey salaada markaa xidhan haddana nala taagaya qalbigaa nagu jira markaasuu wuxuu leeyahay udkur kada udkur kada wa kada wixii aad hilmaansanayd oo dhan buu kugu soo xaadirinaya wixii baa saad uxusuusanta wixii xisaabinayso umaad arkaysa salaatii oo laga baxay war maxaa tukaday marka ilaa uusa kala ogaanin buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday cadadkeeda asallaa alaaan ama arbacan ma saddex baa tukatay tolo bis afar baa maraysa sahwigu muxuu ka yimaadaa dee shaydaankii unbaa meel buu kuu furayaayo t v unbuu kuu furaya intaad kaa sii fiirinayso baad waxaad leedahay war xaggeed maraysaa horta cajiib wey marka munaajaat ilaahay baad hortaaganta iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hada baynii wa bayna cabdii anigii addoonkayga naga dhaxaysa inuu i caabudo anigana aan u kaalmeeyo walicabdii maa sa'al addoonkaygu wuxuu su-aashuu leeyahay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin hada licabdii walicabdii maa sa'al inta dambe waa duca soo ma siraadka ilaahu toosa nagu hanuuni kuwa aad u nicmaysay waddadooda oo kuwa baadiyooyi iyo kuwa loo cadhooday midna aan ahayn ilahu kuwa waddadooda nagu hanuuni
taa addoonkayga iskale waa duco waa baryo uu weydiistay addoonkayga wuxuu i weydiistay buu leeyahay buu ilaahay leeyahay haddaba faatixadii baad akrinaysaa qur-aankii baad akrinaysaa ilaahay baad hor taagan tahay qalbigeennuna waa maqan yahay taas weeye midda dhibaatada salaadda waxa nafciga looga helo salaadda nafciga yeelanayso salaadii xumaanta qofka ka reebaysay ah xaajaadkiisa lagu gudayay ah ilaahay uu ka aqbalayay ajirka wanaagsanaa leh qiyaamaha markii la imaadona acmaashiisoo dhan waxa la xisaabiya salaada ugu horeyso markay wanaagsanaatana camalkiisoo dhan la aqbalayay marka ayada laga aqbalo waa salaada saas sharaada la kamilay way qiyaamaha wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyahay awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu as-salaa adoonka waxa lagu xisaabo waxa ugu horeeya salaada fa in wujida taama qubilat wasaa'iru camalihi haddii salaada laga aqbalo qubilat wasaa'iru camalihi camalkiisii oo dhan waa la aqbalayaa haddii ayadoo naaqisa la arkana ruddad wasaa'iru camalihi camalkiisii oo dhanna waa la radinayaa lianna salaadu waa miftaaxu lcamal hadday ayadu wanaagsanaato waa ra'su lcamal waa afdalu cibaadati lbadan waxa lagu weydiiye waxa ugu horeeyo muhimadda iyo qiimada ay leedahay marka salaada aynu ku dadaalno walaalayaal aan wanaajino waxyaalaha fara badan ee calaa'iqda maanta salaada axkaamteedu way fara badan tahay haddaanu iska soo koobno waxyaalaha badan ee salaada maartay dhibaatada nooga keenayana waa inaan ka ilaalino way qof kastoo markaad tukanayso masaajidka aad soo galayso qofku markuu masaajidka soo galo ee uu masjidka iyo saacadda yare masaajidka daqiiqada uu ku jiro masaajidka uu ku jiro ilaahay buu dayf u yahay gurigiisa buu yimid amalkii ugu sharafta badnaa ugu fadliga badnaa ilaahay ku adoonsaday ku waajib yeelay buu gudanayaa isticdaad baa laga dooni horta adoo iska ordayo taleefankaaga ku hadlayo ama sheekadii banaanka ku haynay la orday un dalaqada iska soo dhaano meesha un baan ka sii wadayna markaan saasi fariisanana qaar baa arkaysaa asagoo sheekaynayo hadlayo allahu akbar leey sheekada banaanka ku murmayna fadhi ku darkiisa u soo wadnay markaan lugta midga soo gelino tii bidaxa soo gelino marka kii uu rabadahay orbal naga aamus markaasuu salaadi galay ma sha Allah Zayn al-Abidin waxa la yiri bin Ali bin Hussein Zayn al-Abidin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib mar alla markuu weysaysto jirkiisa isbedeli jiray markii salaada waqtigeeda la gaaro oo uu weysaysto asaga dhamma jirkiisa doorsoomi jiray maxaa kugu dhacay hadii la yiraahdo wuxuu dhihi jiray ma garanaysaa ahadka aan doonayo inaan hor istaago ma garanaysaan ilaahay baan rabaa inaan hor istaago marka ilaahay markaad hor istaagayso adoon see'aba tahay adoon maxay tahay inaad tiraahdo qalbiga ku soo dhacdo way laakiin adoo iska ordayo iska qaylinayo waxa rabtay iska wadato hadaad iska tiraahdo ma sha Allah markaas marka horaba laga raba isticdaad walaalayaal taleefanka iska dami taharadaada soo kamil masaajidka soo gal khushuuc qalbigaagu ha yimaado salaada tuko inta la tukanayna 10 daqiiqad masaajidka ku jirtaa nus saac baad ku jirtaa intaas ma Allah baa tahay ka faa'iideyso banaanka markaad u baxdo marka adduunyadaada u laab banaanka u laab waxa la rabaa salaada gelitaankeedu waa ghayba aan dunya markii laga baxana waa rujuuc ila dunya saasay ku fasirayaan culimada qaar xadiidka markay leeyihiin tahriimuha takbir wa tahliiluha tasliim tahliilkeedu macnaheedu waxa weeye salaada markaad wax alla wax kasta adduunyada ku banaanayo socodkii iyo wax cunidii iyo hadalkii iyo soo lagama joojinin waad ka tagtay adduunyadii ma Allah baa tahay markaad salaamo naqsatana waa soo noqotay marka waa rujuuc oo salaamtu markii meel la yimaado assalaamu alaykum lama yiraahdo markaad meel ku soo noqoto السلام عليكم تن صلاة أتكجا بحيزه غيب يعني كنت مع الله بعض هيد ضدك واتكتكتي السلام عليكم هذا صلى الله عليه مركا وصلى الله وتوحي مركا هذا الكي يشاكد يسعد كي يعقوب النان ويمعنى لكن صلاة دين نصيدا ما هو ولا ليه صلاة دين وصلاة عادة وين تكنا قف كسوة يرم بالي صلاة تكو وهو يقانا ونين المغرب كنا صدح يا عشرون أفر يا فجر كنا لبيه دور كي عصر كنا أفرق عدوديين ده صلاة دي وانا قانا ما انت كليا صلاة برشد من ركعتها كليا ماي وين بأحكامها ودنبرت بأحكامها ودنينات كمس ودولي بتكتو سي يعني اتكتو يعني صلاة روح له إنها تكتال لدنيا أن كنت ذلك صلاة دوي تليفونها iyo waxyaalaha dhibaatooyinka salaada dhibaatada u keenayo
dadkana salaada ka waswaasinaya waa inaan iska ilaalino waa inaan iska xirno teleefoonaha telefoonkan waa wax faa'iido loo lagu faa'iideysto dhibaatooyinkiisana uu leeyahay waa inaan manfaacadiisa qaadano waxa dhibka keenayna wax looga badbaadaa loo sameeyay waa inaan oga baxno in badan oo kamid ah telefoonkii way yaqaanaan laakiin isticmaalkiisa in badan ma yaqaanaan argaysa arrintii salaada soo ku jiray telefoonka ku soo dhacay markaasuu maanta oo dhan asaga baa isla rafanaya jeebkii salaadii bay wuu ka burayaa soo ma salaadii way ka buraysaa qofka hadduu isla rafado hadduu shib ka dhahana ummadii oo dhan buu haddana waswaasinaya waa dhibaato qalow telefonkii waa mashaakil wey meel codka laga xiruu leeyahay meel asagoo dhan bo laga damiyuu leeyahay haddaad labada isticmaasho maxaa kaa dhaca telefonka markaa soo qaadanaysa sida loo isticmaalo maabarat ya in badan oo kamidana way yaqaanaan markuu rabo wuu daminaya laakiin inuu damiyo ma doonayo waa laga soo wacayaa buu kuleeyahay oo dadka ku soo wacaya kulligood mafaa'ida wax salaadii kaa hadleeyay muxuu wicitaankiisa ku taras qofka dan kaa leh marka hadduu horey kuu soo wacayna wuu kugu soo celinay maa damisi telefonka haddaad daminayna ma codka ka xirtido qofkii ku soo wacayna waa arkay maa ku celis soo ma waxaa loogu talagalay qofku soo wacay inaad aragtee ama masjid buu kuu reebi fariin buu kuu reebi ama waad arkaysaaba telefonka ku soo wacay baad arkaysaa laakiin adigu inaad mushkilo kugu ahaado telefonka maaha telefonka qabashadiisu ma aha wax weyn maaha ya marka ay maslaxad tahay baad qabani markaysa ahayna ma qabanayso marka waa inaan ku dadaalno salaada insha allahu tacaala salaada acmaasheeda waa inaan ku dadaalno wixii markaa yaree salaada markaa ku tacalluqaya axkaamteeda iyo su-aalaheedana waanu raacinayna insha allah waqtiga inta ka dhiman aqulu qawli hada waastaqfirullah li walakum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu